السلام عليكم ومركز مقال عصب وورينا ديد نوع سبتي يوتيوب channel كينا مستر شاكي وحكا عصينا channel كينا سبسكرايب كريسيد هدية دينا جوجتي أما وقالنا موقع سارتد سي قاران سحبوا وناسن سيدين كوكلا أما سندين رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب magacay waxaa la yidhi waxaan ku noolaa gobolka Texas sheekadan waxay ugu dhacday markii ay jirdaada 15 sano hooyaday aabahay waxay ahayn ganacsadayaal saatay haweenada ka mid ah waxay ganacsi u aaday dalka India haweenkan waxa ku aad isku macsalaameyn saatay in yar ka bacdi markay baxeen anaa mid ka mursan tagitaanka waalidiinteeda iga tageen haddana waxaa soo xasuustay saaxiibadii inay joogaan inta ka imaanaya kan waqti wada qaadan karno isla markiiba waxaan wacay saaxiibadeyda waxaan u sheegay inay waalidiinteeda baxeen inta ka dibaan waqti wada qaadano gurigeena si aan wada ciyaarno si wanaag in ka bacdi way yimaadeen saaxiibadeyda waxaan wada ciyaaraynaa ciyaarista video gameska in muddo kadib saaxiibadii waxaan u sheegay inaan guriga banaanka ku wada ciyaarno si aan waqti wada qaadano inta ka imaanaya waalidiinteeda inta kadib waxaan ku aaka raadinayaa ayaan xakay ugu dhuumanaa guriga hareerihiisa ugu horreyn waxaan qabtay saaxiibkayga marka xigtana waxaan arkay saaxiibkayga uu saaran dhankayga keen cabsi badan waan yaabnay labadeennaba maxaad ahayd maxaa khaldan talow saaxiibkeen dhanka uu soo cararay saaxiibkeen wuxuu sheegay inuu aamuso intii aan soconaynay ayaan waxaan ku istay qoray ka bacdi waxaan arkay saaxiibkay oo dhintay weliba dilnin indhihiis aad guduudan yihiin wuxuuna ku dilay mid dhiig leh ninku wuxuu baa noogu soo carar dhankayga saatay waa ka soo carar aniga aad u naxsan ninkuna wuxuu midna soo cersanay labadeennaba wuxuu matay midadiisa isla markiiba waxaan soo galnay gurigeena waxaan wacnay booliiskii waxaan u sheegnay nin inuu dilaa ah gurigeena hareerihiisa wuxuuna dilay saaxiibkaygii si wanaag booliis waxay imaadeen gurigii waxaan qaaday meedka saaxiibkayga tani dhacaash qooshaxo kadib anigu waxaa mid aad u naxsan hasaatani si wanaag waxaa guriga imaaday waalidiinteeda habeenadii xigay waxaana mid aad u faraxsanay maanta waalidiinteeda imaadeen